السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة iyo Siciid Xagaa oo maanta idin wada su'aal runtii xisaab maaha laakiin waa sheeko jirta laakiin dad laga yaabaya inaanan weli arag ama maskaxiyan wax kale kugu soo rido marka aad sheekadan aad isku daydo inaad ka jawaabto marka su'aal weeyaan oo aad kaga jawaabayso commentiga hoose ee YouTube-ka hadduu aan la idmo waxaynu ku bilaabanaysaa sidan waaye waxaa israacay oo socdaal waddo safar ah wada galay laba nin labadaa nin waa nin aqoon-yahana oo cilmi bartay oo ilaa ka gaaray darajada PhD ayuu ka gaaray cilmiga iyo aqoonta kan kale waa ninaan wax baran oo aanan aqoonta ninkan uu bartay aan baran laakiin iska magaalada iska jooga oo iska caadiya oo maaragtay dadka caadiga ka mid ah dadka la yiraahdo ordinary people ama dadka iska caadiga ah safarkii markay wada galeen oo ay socdeen ay muddo socdeen ayaa gabalkii ku dhacay kadib waxay go'aansadeen inay seexdaan habeenkaa kadib waxa ay dhisteen tendo qofba si u yaqaano baasha la dhisto tendada ah oo runtii aad u adag oo ayay markiiba boobsiiyeen tendadii dhisteen way habeysteen way galeen way seexdeen markuu gabalkii dhacay kadib saacado kadib dhowr saacadood kadib adiga saq dhexe ama saqbar ayaa ninkii aan wax baran wuxuu toosiyey uu ka kiciyey ninkii kale markaasuu ku yiri warniyo cirka eegbal ama cirka fiiri maxaad ku aragtaa ilaa waa adiga wax bartay oo aqoontii iyo wax yaqaan bal ii sheeg ninkii wax bartay saasuu u eegay cirkuu fiiriyey kadib wuu hadlay wuxuu yidhi waxaan ku arkaa malaayiin xidiga ah ayaan ku arkaa mar labaad ayuu su'aal kala weydiiyey oo ku yidhi haddaba maxay kuu sheegayaan xidigaha bal ii sheeg waxa ay kuu sheegayaan ninkii PhD-ga ahaa ayaa hadalkii qaatoo yiri waxay ii sheegayaan marka hore inay yihiin xidigo malaayiin xidiga ah billions adduunyo kale ah oo anigu aanan ogeyn waxaan kaloon arkayaa oo ay ii sheegayaan awoodda alle inay tahay mucjiso weyn oo waxaan samaysay inay tahay ayaan arkayaa waxaa kaloo ii muuqda qiyaas ahaan saacaddu xilligan inay tahay isagoo saacaddii eegin buu ka qiyaas qaadanaya oo inay tahay xilligaa iyo xilligaa saacad buu sheegay markaasi kadib ayuu yiri berrina waxay u muuqdaan maalin wanaagsan inay tahay maalin fiican oo inay tahay ayay u muuqdaa marka anigu intaas ayaan arkaya ayuu ku yidhi kadib isagii marka ku celiyey su-aasha markuu yiri adiga maxaad aragtaa maxayse kuu sheegayaan waxaa la weydiinayaa ninkii aan waxba baran markaasuu ku yidhi anigu waxaan arkaa horta xidigo badan waan u jeedaa waan arkayaa waxayse i tusaysaa oo ay ii muujinaysaa waxa iyo waxa iyo waxa marka wuxuu bixiyey jawaab ayuu bixiyey jawaabtaasi oo runtii ka macquulsan ahna jawaabtii runta ahayd ee su'aasha uu marka hore isaga weydiiyey haddaba daawade adiga ahaan bal sheekadan haddaadan fahmin videogan pause dheh dib u celi mar labaad daawo haddaad fahmi weydin mar saddexaad daawo kadib jawaabta kuu soo baxda oo aad aragto xagga hoose ee commentiga meesha lagu qoro ku qor bal jawaabtaada waxaan rajaynayaa labada midkood haddaba kan waad haysataa ninkan PhD-ga jawaabtiisa kan kale ee aan ku iri jawaabtiisu waa ka saxsan tahay
kana macquulsan tahay bal qiyaas hana isku dayin inaad meelo kale sheekadan ka raadiso maadaama aan bilowga kuugu bilaabo waa sheeko caana waxaan rabaa adigu maskaxdaada marka hore inaad isku daydo macno ma samaynayso dad raadiso oo aad meelo kale gasho oo aad dad kale wax weydiiso dee adiga kamaad jawaabin soo maaha bal adigu isku day waxaa laga yaabaa jawaabta la bixiyey jawaabta la bixiyey ninkan mid ka macquulsanba inaad keento adigu marka waxaad isticmaalaysaa qalinkaaga buuggaagii warqadaada iyo maskaxdaada ani insha allahu tacaala jawaabta waxaan ku bixin doonaa xagga commentiga youtube-ka waa mar kale iyo miid maxatay iyo siciid xagaa iyo su-aashaasi oon idinka sugayo jawaabteeda videogana anaa iska duubay saaxiibkii maajama wuu maqan yahay haddii aad ku aragtaan wax si fiican hadduu muuqaalka idiin noqon waayo ka raali noqdo. Asante.